Alaikum dhamaantiin waan salaamayaa walaalkiin injineer dhaqane oo had iyo jeer uga barateen soo jeedinta cilmiga teknolojiyadda waxaan rabaa maanta inaan la wadaago sida loo ogaado qofka YouTube intuu lacag ka sameeyo had iyo jeer Soomaalidu way soo fahantay hadeer in YouTube lacag laga sameeyo waayadii hore Soomaalida lacagta YouTube ka sameeyo way yarayd marka haddii aad rabtid inaad ogaatid qofka YouTube ka lacagta intuu ka sameeyo see ku ogaan ka dhaamar lan qofka hadaa weydiiso xataa waxa dhici kara inuusan xaqiiqda kuu sheegin oo intuu ka sameeyaan dad badan baa waxay aaminsan inaan YouTube lacag laga sameeyo laakiin xaqiiqatan YouTube lacag waa laga sameeyaa in dambana waa la soo fahmay maanta waxaan idin tusi doonaa sida aad u fiirin lahayd qof kasta intuu lacag YouTube ka sameeyo hadduusan ka sameyn hadduu ka sameeyo iyo shanta qof ugu horeysa oo lacagta ugu badan ka sameysa fadlan haddaan hore nagu soo biir fadlan nagu soo biir haddaan nagu soo biidhayna like saar siina share garee muuqaalka dad koromahaaga soo fudhid sida halkan u jeedid halkaas waxaa ku qoraysaa website caan oo la yiraahdo socialblade waxaa la yiraahdaa socialblade.com isaga qoraysaa waa ku dhufanaysaa saas ku soo saaraya kadib waa tagaysaa midkaan rabna hadda ugu horeeya inaan soo qaadano baan tusaale ka dhigaynaa halkan haddaad tagtid waqal baan qoranaa oo kale TV oo kale markaa TV-ga si aad u durtugto ama waxaa rabtid inaad qofka rabtid inaad fiirisid kadib saddexda dhinac meesha qoranta aad taabanaysaa share baa dhahaysaa copy baa dhahaysaa linkii waa copyaysanaysaa koromahaaga iska imaanaysaa meeshii halkaasaa ku baasti garanaysaa linkigiisa baastidhe kadibna waa siege baa leedahay saa u jeedid uu kuu soo saaray waqal TV wuxuu ku yiri kaas wixiisii dhan banaankaasi ku yaalaan haddii xagga aad fiirisid estimated monthly earning inta qofka monthly bishii ka helo bisha hadda waqal TV imisa laga helaa waxaa laga helaa $6,200 markay ugu yadhahay waqal TV waxaa soo gasho bishii ka soo gasho YouTube-ka xagiisa $6,200 markay ugu badan tahayna bishaasi wuxuu helaa $98,400 sanadkii qiyaas ahaan waxaa soo gasha $73,800 ilaa iyo wax ku dhow $1,200,000 marka saa darteed saasaa loo fiiriyaa kani waa qofka ugu horeeya marka Soomaali lacag sameynta noqoto qofka ugu lacagta badan ka sameeya waa kan haddii aan haddana soo qaadano qofka ku xiga marka hore xaggan linkiisa ka soo koobiyeysanay laakiin uu hadda halkan ii yaala xaggan ka koobiyeysanaya laakiin adoo disa xagga ku oolin xagga ka soo koobiyeysa marka copy sida u tiraahid meeshii waa tagaysaa waa ka laabanaysaa siijinta meeshu qoran tahay waa baasi ku dhahaysaa kii hore iska tirtir kii hore ku soo qabanayaa baasi ku dhe kadib siij dhe qofka labaad oo ah Cabdi Askari wuxuu ka sameeyaa bishii qiyaas ahaan adigu $3,700 ilaa iyo lacag gaaraysa $59,700 sanadkii isagu wuxuu ka sameeyaa $44,800 ilaa lacag gaaraysa $716,600 qofkii labaad Cabdi Askari YouTube buu noqday
kan saddexaad isna waad garanaysaan, waa Sharma Boy. kii hore noo soo qabtay kan waa iska tirtiraysaa, linkiga hore meesha ku jira waa iska tirtiraysaa, linkigaana baasi ku dhahaysaa, kadib waa raadinaysaa. qofka saddexaad waa Sharma Boy, wuxuu ka helaa 2.5k buu ka helaa, 2.5k buu ka helaa oo bishii ka soo gasha, ilaa iyo 39,300 waa bishii, 2,500 ilaa 39,300. sanadkii imisuu ka helaa? sanadkii wuxuu ka helaa 29,500 ilaa iyo 471,300. haddaan u galno qofka afaraad, waa Farxaan Diraac, aa wada taqaanaan Sadiir. wuxuu ka sameeyaa 1,300 markay ugu yeedhahay, ilaa iyo 20,700 buu bishii ka sameeyaa. lacagta sanadku ka sameeya waxay tahay 15,600 ilaa 248,900. meesha show lacag baa taal, waxaa dadkaas ka qaylinaya ujeedaan, lacag bay ka sameeyaa. qofka shanaad aan kusoo gabagabeynayno waa Ilka Case. dad badan oo Soomaaliya waxay arkaan dadkan YouTube iskaga hadlaya, waxay u qabaan in iska hadlaya, ma oga meesha in lacag taal. markuu soo yaacay YouTube-ka lacag ka sameeya Soomaaliya, oo like-ta iyo share-ta iyo asxaabtina la wadaago, ha ka ilaawina. qofka ugu dambeeya aan kusoo gabagabeynno waa Ilka Case Qays, ninkii nooca Joker si kale ma taqaanaane, saasaba ka caansanba boqorka shanta Soomaaliyeed. wuxuu ka sameeyaa 902 dollar buu ka sameeyaa, ilaa iyo 14,400 bishii. sanadkii 10,800 buu ka sameeyaa, ilaa iyo 173,100 dollar. marka saa darteed YouTube-ku lacago badan baa laga sameeyaa. way jiraan dad kale oo waxyaabo badan lacag badan ka sameeyo, laakiin video aan ugu talagalay tusaalo inaan dadka tuso, dee aan tuso si qofkii ugu fiirin lahaa. inta kale idinkaa idin deenayaa, ku baraagsi gareeya. kuwo badan linkigooda soo qabta, waqtiga ugu yaraa awgeed baan usoo koobay, oo waxaan isla intaa jaaniska uga faa'iidee. waa mahadsantihiin, wabilaahi towfiiq.